السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتك وحرن إيكي برودكشن وايد سلامي صاحبكي إيكي isku soo laabasho aan xiiso leh saaxiibadayda sharafta leh ee channel ku soo biiray aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. waxaan arkay asxaab aad iyo aad u fara badan oo channelka ku soo biiray, marka asxaabtaas waxaan leeyahay saaxiibayaal aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin sida channelka ugu soo biirteen. channelkana badanaa waxaan soo geliyaa muuqaalada magaalada Muqdisho, muuqaalo kala duwan ayaan soo geliyaa, marka ku soo dhawaada channelkeena saaxiibada. marka maanta waxaan noo hayaa mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay tarabuunka. mowduucan waa ammaan iyo dhaliil labadaba isla socda. mowduucyo badan oo waxaan soo gudbinayay magaalada Muqdisho ku saabsanaa maalmihii u dambeeyay, bilihii u dambeeyay, waxyaabahan Muqdisho iyo waxyaabo muuqaalada ku saabsanayaan aad iyo aad channelku soo geliyay. marka waxaan cabasho ka nahay locdan hadda u jeedaan oo wadadii meeshii dadka marayeen xiratay. marka wadooyinka waaweyn haddii aad tagtid dhammaan wadooyinka waxaad ku arkaysaa locdaas. marka dadka locdan iskale horta locdu macnaha waa wax oo bulshadeena u fiican, waa macnaha waa xoolaheena dhamaa waaye, laakiinse in wadooyinka waaweyn ay xirato locda. marka su'aal isweydiiyay hadda meeshaan aan joogo oo hadda muuqaalkan ay kaga duubayo waa tarabuunka. guryaha ka soo horjeeda oo jeedaan inta dheer leegeen qaarkoodna muuqaalka oo kugu soo qabtay dhinacaan soo maray. hadda halkan waxa ku yaala dhismo aad iyo aad u dheer. dhismahaas 10 tilaabo hadaa socotid ama 100 tilaabo ama 55 tilaabo hadaa socotid, macnaha waxa arkaysaa in lo iska fadhida xero lo ay tahay. marka waa la yaaba marka wadanka macnaha dadka locda say u dhaqanayaan wax badan ayaa ka qaldan. waxa loo baahan yahay locda xataa xaafadaha in lagu haayo. xaafadaha maana laamiga dhexdiisa ay macnaha locda xiranaysaa, xataa xaafadaha ma tagayso. xaafadaha haddii locda lagu haayo wax problem ma lahan, laakiin meesha baabuurtii iyo locdii waa isku meel bay haddana macnaha laamiga dhexdiisa ay fariisanayaan, ay markaas macnaha ku saxaroonayaan. wax walba nadaafad xumo qaab darra ka dhalanaysa. marka akhyaaray ani ma rabo hadda magaaladeeda inaan macnaha aan deegaankan ku noolahay inaan macnaha aflagaadeeyo, laakiin wixii jiray inaan sheego aad iyo aad muhiim u tahay. halkan marka sida u jeedeen waa ammaan. halkan waxa waaye waa markii isbitaalka xoogga markii la maraayo tarabuunka markii loo socdo wadada dheer ee xiriirisa ee hormarto waaye. hadda wadadan sida u jeedid wadada nadaafadeeda way fiican tahay, lo ma joogto. marka wadadan sida ay u qurux badan tahay ee u nadiifsan tahay, maxaa u jeeday wadadaas kale inay nadiif u noqoto. xataa tarabuunka ma ahan meesha dhib ka jiro, waa luuqa tarabuunka. marka tarabuunka markii laga leexdo oo luuqa la sii galo saaxiibayaal marka sida u jeedaan wadadan wada ayadana qurux badan oo nadiif ah. marka wadada maadaama ay hadda saan nadiif u tahay, saan oo kale haddii ay ahaan lahayd ammaan ayaan u gudbin lahayn. aniga channelkeena wixii macnaha meesha ku aragna ayaan soo gudbin. hadda sida u jeeda halkan haddii tarabuunka mar hore kugu dambeysay muuqaalkan ayaad ku arki doontaa tarabuunka. isgoyska tarabuunka ciidan ayuu xiran yahay ma duubin, laakiin isgoyska ilaa isgoyska macnaha inta laga gaarayo muuqaalkan waad ku arki doontaan. haddii aad channelka cusub tahay saaxiib channelkan subscribe saar, dhiirigelin ayay noo noqonaysaa. subscribe, like, share ha iloobin. intiina subscribe saartay maalmihii u dambeeyay dad badan ayaa channelka ku soo biiray, subscribe saaray, sidoo kale dad badan commentiyo qurux badan ayaa arkayay. dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. sharafta leh channelka ula socotaan aad u jeceshiin inaan muuqaalo badan idin soo geliyo. aad iyo aad ugu mahadsantihiin. halkan sida u jeedid waa meesha oo baabuurta waaweynay meesha waxaa idin tusayaa xataa baabuurta lagu barto iskool wiidada waatan hadda waaba joognaaba. marka halkan waa tarabuunka meesha baabuurta lagu barto. tarabuunkana wuxuu ku oli jiray halkaas u jeedaan tarabuunkii hore ee xilliga siyaad barre macnaha la isugu imaan jiray meeshaas ayuu ku oli jiray. hadda way burbursan tahay oo meel burbursan oo dad ayaa degan caadi u degan, laakiin marka hore tarabuunka meesha ku oli jirtay oo xilliga siyaad barre la isugu imaan jiray oo xataa fadhiyadii waxyaabihii leh xataa way ku taalaa. marka halkan waa isgoyskii hadda isgoyska joognaa sida u jeedaan. isgoyska intaan meeshaan hadda taaganahay waa isgoyska tarabuunka oo macnaha oo meesha loo yaqaan hadda sida saxda isgoyska tarabuunka ayaan joognaa. marka waxaan rabnaa inaan ka leexano luuqa oo Digfaar dhinaciisna aadno. meeshaasna waa meesha aan ku soo arkay macnaha locda. waxaa laga yaabaa dadka locda iska leh oo milkiilayaasha locda ah inayba muuqaalkanba daawadaan. marka fadlan haddii aad locdan adiga leedahay oo milkiilaha locda tahay, fadlan locdaada xaafadda ku hayso ee laamiyada locda aad soo fariisinaysid. haddii locdaas wax yar gaaraan waxaa soo baxaya dad badan oo maaragtay oo dhahaya macnaha locdeeni baa wax la gaarsiiyey. marka akhyaaray waxaan leenahay horta locda la dhaqda ma xume, laakiin xoolaha Soomaalida hadda sida u dhaqdaan wax badan ayaa ka qaldan. macnaha sida xoolaha
ayagaa la dhaqdaa, dadkaa la dhaqdaa, xoolaha ma dhaqdaan, ma fahanti. Marka xoolaha sida u dhaqanay wax badan ayaa ka qaldan, ma fahanti. Lo magaalada iska dhex fariisanaysa. Hadda video aan maalin dhexdaas soo dhigay yaraa comment ka soo bixiyay wuxuu dhahay magaalada lo'da iyo maaragtay iyo laga celiyo dameeraha iyo waxyaabahaas. Muuqaalo badan oo aniga aan duubay aan iska dhaafaya jira sida muuqaaladan oo kala noqdeen oo lo iyo waxyaabo badan ka buuxsameen. Marka anina waxa is dhaaniyo muuqaaladan magaalada qalad ka gudbinaysa ama wax saas marka iska ilaali as dhaha marka. Laakiin muuqaalkan waxa ku dhiiraday sababtoo ah dhismo weyn oo ku yaala meesha, dhismo aad iyo aad qurux badan halkaan uu ka soo bixi doona insha Allah. Meesha hadda ku soconnaa ayuu ka soo bixi doona. Marka dhismo weyn meesha ku yaala waxa is dhahay dhismahan ninka dhistay intaas oo lacag galiyay haddana meesha ku hortiisa waxa waay lo buuxda macnaha. Marka waxa is dhahay maxay faa'iido ugu jirto meesha dhismihiisa muxuu taraa wax uu taraa ma la dhismihiisa wax faa'iido dhismihiisa ugu jirto ma lahan. Dad badan oo comment-yada xataa soo qorayay way jiraan waana ku raacsanaaybo. Waxaan ku raacsanahay haddii magaalada aysan bilic lahayn dhismahaaga wuxuu soo kordhinayo ma lahan, wuxuu macnaha keenayo ma lahan, ganacsi ma ku soo kordhinayo magaalada ma ku horumarayso, ma fahanti. Marka kulli ay dadkan waa dad aan adduunyada la socon oo maarad Soomaali hadaan nahay waxa way adduunyada mar hore ay macnaha naga horumarto, ma fahanti. Marka waxa aaminsanahay in macnaha sanadaha soo socda ama ay fahmi doonaan maaragtay deegaanka muhiimadiisa, nadaafadiisa, wixiis. Horta qofku markuu mid kalena yar kale asna comment ku soo qoray waxaan arkay meelaha Dar es Salaam kala muuqaal ka soo duubay wuxuu dhahay magaalada meelaha ay dadkaas oo taajiriinta degan ama dadka dibadaha ka imaada nadiif way, meelaha kalena wasaq way dhahay. Horta qofku markuu wax haysto oo nadaafad waxay ku dadaalaan. Hadda Soomaaliya hadday noqoto wadan horumaray oo dhaqaale yeesho waxa aaminsanahay in wadooyinkooda ay horumar badan ka muuqan doonaan. Marka meel walba waa sida ay u kala dhaqaale badan tahay. Ayadoo saas jirto haddana meel badan waxaa jira oo dad masaakiin ama dad oo aad iyo aad dhaqaale u liita degan haddana nadaafadooda fiican tahay jirto. Marka akhyaaray warka mid ku badinay aad iyo aad ugu meestin daawashadiina saaxiibkiin ee dhahaya nabaday.